laba arimood waxay anfacayaan qof kasta oo mu'min ah dabeecad wanaaga iyo deeqsinimada laba arimoodna waxay kor yeelaan arinta qofka mu'minka ah isdhuldhiga ama tawaaduca iyo wax ka qabashada baahiyaha dadka laba arimood waxay qofka mu'minka ah ka ilaaliyaan balaayooyinka iyo masaa'ibta waa sadaqada iyo xiriirinta riximka xaakim ayaa la weydiiyay waayo kuwa ceertu ah wuxuu yiri ceertu waa saddex waraabuhu ugaartu asaga ayaa daba orta oo soo qabsada inta badan wuxuu soo qabsadana waxa ka qaata libaax faqiirkuna maal buu aruuriyaa markaas waxa ka qaata dad kale xallowguna wuxuu xantaa waxaana ka qaata dadkoo xantay xasanaadkiisa afar qaacido ee habboon tahay inaad ka dhigato aasaaska noloshaada si aad dadka u raaligeliso awgeed ha isku balbedelin si aad u cajab geliso awgeed marba midib ha isku yeelin fashil kugu dhacay awgiisna ha isku bedelin guul aad gaarto awgeedna ha ku kibrin arsaaqda ugu wanaagsan ma aha midda maalka laakiin arsaaqda ugu wanaagsan waa deganaanta ruuxdu nuurka aqliga caafimaadka jirka qalbiga nadiifka ah fikirka saliimka ah ducada hooyada naxariista aabbo walaal ku garab taagan dhoola cadeynta ilmahaaga saaxiib ku daryeela iyo duco qof alla dartiisa kugu jecel ugu dambeyn walaalkaygiiyow waxaad saaxiib ka dhigataa dadka saalixiinta ah maxaa yeelay markaad maqan tahay way ku tabayaan markaad wax hilmaamtana way ku baraarujinayaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh